Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaynu qaadan doonaa qaabka loo sameeyo infographic design-ka ama infographics-ka qaabka loo sameeyo. Marka infographic-kan kuu muuqda ayaan samayn doonaa oo ku tusi doonaa steps-ka aan u maray iyo qaabka aan u sameeyay. Infographics-ka waxaa la isticmaalaa marka la doonayo in la sameeyo analytics in la soo bandhigo ama marka la doonayo in la sameeyo wax process ah oo istaba yaala ayaa la doonaya in la soo bandhigo. Markaas ay xilliyadaas ayaa la isticmaalaa infographics-ka. Marka waxaan ku tusayaa infographic-kan waxaa laga yaabaa markaad saa u aragto inuu complicated u yara adag yahay ay u yara eg yahay wax yara adag laakiin marka aynu design-ka bilowno waxaad arki doontaa wax aad u fudud inuu yahay waxaana idinkula talinayaa inaad isku soo daydaan qaar kale oo isaga ka duwan aad infographic kala soo samaysaan channelka daawanaysa Usul Graphics fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigeli wixii faaleed qabtana commentiga hoos noogu reeb waxaan idinka codsanayaa inaad casharka sii share garayso like-na aad saarto haddii aan casharka iska bilaabno marka horeysa file baad tegaysaa file markaad tagto new baad dooranaysaa new markaad doorato anigu waxaan ku sameynayaa size ah 1200 oo bt ama points ah oo width ah iyo 1600 kadib waxaan halkan ku qoranayaa infographic ayaan halkan ku qoranayaa infographics markaan halkan ku qorto kadib create baan leeyahay create markaan idhaahdo halkan ayaan doonayaa haddaba inaan ku shaqeeyo design-ku waa kan waxaan doonaynaa marka hore inaan sameyno warwareega ayaynu doonaynaa marka hore inaan sameyno kadib halkan baynu tegaynaa waxaanu sameynaynaa halkan waxaan tegay rectangular kadib right click baan leeyahay ellipse baan dooranaya kadib waxaan sameynayaa anuu shift iyo alt isla xijinaya ayaan waxaan sameynayaa inaan saa idhaahdo kadib aan sii daayo marka waxaan sameynayaa inaan colorka cad aan iska saaro aan unfill idhaahdo kadib aan stroke kordhisto oo aan halkaa ka dhigto 20 oo kale aan 20ka ku eego 20 aan ka dhigto aad bay u yar tahay 20ku waxaan sameynayaa inaan halkaa ka dhigto 60 ayaan ka dhiganayaa kadib halkan baan click leeyahay 60 kaasaan ku diisanaya marka haddii inaan 60ka ka yar badina damacno waan yara kordhisanaynaa halkan baan horta soo dhiganayaa kadib waxaan sameynayaa inaan yara kordhiyo aan weli si yar kordhiyo stroke-ga intaasaan ku daynayaa kadib waxaan sameynayaa haddaba inaan marka hore aan sameeyo inaan ka dhigo aan expand ku sameeyo kadib objective baan tegayaa expand baan leeyahay kadib okay baan leeyahay markaan saa u expand gareeyo waxaan sameynayaa haddaba inaan horta kala qaybiyo waxaan soo qaadanayaa line-kan baan soo qaadanayaa kadib saasaan leeyahay haddaba eeg markaad line-kii samaysato iminka waxaad arki kartaa in line-kaygu aan bartanka ku beegnayn waxa muhiimaduna waxay tahay in bartanka aad ku beegto line-ka waxaad samaynaysaa markaa labadooda isku select garaynaysaa halkan alignment-ka intaad tagto ayaad halkaa ku dhufanaysaa horizontal align center saa markaad ugu dhufato centerkuu kuu geynayaa kadib waxaan sameynayaa haddaba inaan line-kayga oo keliya select garaysto object aan tago kadib aan halkan tago path kadib aan halkaa ku dhufto divide object below kadib wuu ii kala qaybinaya way ii kala qaybsantahay iminka kadib waxaan sameynayaa haddaba iminka inaan kala koobiyeeyo anoo alta xijinaya inaan kala koobiyeeyo kadib altaan qabanayaa hoos baan soconayaa waan xijinayaa saasaan ayaan halkaa u dhigayaa haddana tan kalaan soo qaadanayaa alta anoo xijinaya markastoo wax koobiyeynayana altaan xijinayaa halkaasaan yada dhigayaa kadib haddana altaan qabanayaa halkaasaan dhigaya iyadana halkaan markaan dhigo waxaa laga yaabaa inay kaa kala qalqaloocaan waad isku select garaynaysaa alignment-kii ayaad waxaad ku dhufanaysaa halkaa ay ku qorantay horizontally align left ayaad click leedahay marka saa laysugu ka align gareeyo in yar kor yar qaad waxaad samaynaysaa markaa inaad kala furto haddaba saasaad leedahay saa isugu soo wada select garayso object tag kadib aan group dhaayo kadib waxaad arkaysaa inay kuu kala furfuran yihiin geesihii oo ay kuu kala qaybsan tahay marka waxaan samaynayaa haddaba intan inaan kaa doorto kadib kan doorto si muxuu ahaye talantalia aan u doorto marka intaa doorto waxaan samaynayaa right click inaan idhaahdo arrange aan tago kadib aan bring to front aan idhaahdo kadib aan color ka dhigo imika wadi horta gebigooda baan wada color ka wada dhigo ka aan oo ka idhaahdo marka colorka ay wada yihiin ayaan haddaba waxaan sameynayaa inaan coloradii kala duduwanaa aan ka dhigo afarta color marka waxaan sameynayaa horta inaan afarta color aan soo qaato halkan baan dhiganayaa rectangular ku kale ayaan hoos dhiganayaa ku kale ayaan sii hoos dhiganayaa ku kale ayaan sii hoos dhiganayaa afartaa markaan dhigto kan waxaan sameynayaa inaan kaa horeeyo ku shubo orange-ka kan ku xigaan tegayaa eyedropper-kaygaan tegayaa kan baan ku shubanayaa haddana kan baan tegayaa eyedropper-kaygaan tegayaa kanaan ku shubanayaa haddana kanaan tegayaa eyedropper-kaygaan tegayaa kanaan ku shubanaya marka afartii color sidaa u soo qaato waxaan sameynayaa inaan isku select garaysto aan design-kayga cusub keensado aan halkan soo dhigto marka waxaan sameynayaa inaan kan doorto kadib aan halkan tago kan ku shubo haddana kan tago aan eyedropper-kayga tago aan color kan doorto kadib haddana aan kan tago eyedropper-kayga aan tago aan color kan doorto marka sidaasaad colorada u bedbedelaysaa markaad sidaa colorkii u wada bedesho waxaad samaynaysaa haddaba qaybtan madoob ay hadhay qaybtan madoobaan haddana wada dooranayaa markaan qaybtan madow wada doorto iyaga halkan baan tegayaa colorka
kadib waxaan samaynayaa inaan halkaa tago oo aan gray xagga caddaanka xiga weliba ka dhigo okay aan idhaahdo markaan sidaa ka dhigo weliba aad bay khafiif u siiyiin baan malaynayaa in yar aan soo celiyo intaan doorto aan in yar saa soo celiyo kadib aan okay idhaahdo marka waxaad samayn kartaa si aanay hadhow intaa grayga aana kaaga dhaqdhaqaaqin object tag kadib group ka dhigo kuwan laftoodana group ka dhigo haddii aad doonto intaasaa u doorato ayaad ayar group ka dhigan kartaa objecti kadib group baad leedahay marka sidaa wixiiba u wada group garaysato waxay noo hadhay seerka shaadhexda halkan baan tegayaa kadib halkan baan tegayaa right click baan leeyahay ellipse tool baan dooranayaa halkaa markaan isleeyahay iminka halkaa markaan isleeyahay dhexdii baa taagantii ayaan shift alt isla qabanaya seerka shaydii saasaan weyneynaya markaan sidaa idhaahdo kadib saan baan usoo celinayaa dhexdaan ku beegayaa waxaan isku dayayaa inaan dhexda ku beego iminka halkaas haddii aan kan doorto iyo kan aan doorto kadib aan idhaahdo aan kana raaciyo aan idhaahdo dhexda igu beeg oo kaa dhexda iminka igu beegantay marka waxaan samaynayaa in iyada doorto aan caddaan ka dhigto kalarkeeda markaan caddaan kalarkeeda ka dhigto waxaan samaynayaa haddaba inaan doorto aan effect tago kadib aan stylize tago kadib aan drop shadow doorto drop shadow markaan doorto waan yara dhimaya drop shadowga in yar baan yara dhimayaa halkaasaan ku daynaya kadib okay baan leeyahay haddaba waxaan samaynayaa inaan kala koobiyeeyo seerka shaydii aan saa usoo kala koobiyeysto waxba ha isku dayin iminka inaad dhexda ku hagaajiso saa markaad usoo kala koobiyeysto waxaad samaysaa inaad mid walba xagga sare un inaad ka sinto isku day xaggaa sare markaad ka sinto waxaad samaynaysaa saasaad leedahay gebigoodaba isku sin align tag kadib center dheh isugu kaasinmayaan marka sidaa isugu kaasinmaan kan waxaad moodaa in xagga hoose aanaan hoos u yara dhigin in yar aeroogaadoo isticmaalaya ayaad hoos u dhigaysaa markaad in yar hoos u dhigto kana aad in yar hoos u yara dhigto saasay noogu align garaysan yihiin iminka iminka waxaynu samaynay qaybtii warwareegahayd iyo seerka liskii waxa kaliya inoo hadhay baa qoraalka un kadib qoraalka ayaynu samaynaynaa text baan leeyahay kadib halkaasaan ku qoranayaa step markaan halkaa ku qorto ayaan move toolkaygaan tegayaa kadib waan soo weyneynayaa double click baan leeyahay wada capital baan ka dhiganayaa step iska masaxo wada capital baan ka dhiganayaa kadib waxaan samaynayaa inaan double click idhaahdo aan halkan ku qorto fartii aan doonayay Gotham baan halkaa ku qoranayaa kadib black baan ka dhiganayaa Gotham black kadib check baan leeyahay waxaan samaynayaa inaan halkan soo dhigto kadib waxaan samaynayaa inaan kala koobiyeeyo haddana aan halkaa ku qorto 01 kadib aan ayarsaa u weyneeyo aan sameeyo inaan haddana tan koobiyeysto halta anoo xijinaya markastana ood wax koobiyeysanaysaa altun baad ayar iska xijisanaysaa haddana ayar baan sii kala koobiyeynayaa halkaasaan geynaya markaan sidaa idhaahdo kan waxaan ku qoranayaa haddaba 02 halkaas 02 baan ku qoranaya kadib check baan leeyahay haddana halkan baan tegayaa 03 baan ku qoranayaa haddana check baan leeyahay haddana halkan baan tegayaa 04 baan ku qoranayaa marka lambarka 1 kun baa bedbedelayaa zerogu qoran yahay marka waxaan samaynayaa inaan kan iyo kan doorto aan haddana kan doorto aan in yar saa u yar leexiyo ama aan iyaga laftooda intaan align tago kadib aan dhinacaa isugu durkiyo kadib haddana aan tan tago aan intan select garaysto aan align idhaahdo aan dhinacaa isugu durkiyo marka sida ay wada yihiin ayaa waxaan samaynayaa haddaba waxay hadhay inaan coloriska bedelo marka haddii aad designkaygan arkayso waan u kala bedelay kalarada waan kala gediyey waxaan bilaabay kaa u horreeyey markaan doortay waxaan sameeyey inaan ku kalareeyo kalarka qaybta u hooseysa ku jira inaan kalarka ku shubo haddii aan imika saa u select gareeyo ay darobarkayga waxaan sameeyey kalarisku saan ma u kala hooseeyaan inaan kaa hoose kasoo bilaabo kadib aan check idhaahdo haddana waxaan sameeyey inaan kan doortay haddana aan kan doortay ayaa waxaan sameeyey inaan ay darobarkayga tago haddana aan kan ka sarreeya ku shubo oo siday usoo kala sarreeyaan aanu isticmaalo markaa saasaad u samaynaysa adiguna waxa infographiga waxa qurxiyaana waa kalarada faraha yara badan leh iyo shaybiskiisa unbaa qurxiya markaan kaana kaa doorto haddaba waxay hadhay inaan sameeyo inaan dhexda horta saa ugu yar durkiyo xagga dhexda markaa waxaad moodaa inaynu kan ka waaweyneyni uu ka waaweyn yahay oo aad aan uga waaweyneynin markaa dhib ma lahan waxa weeyaan muhiimaddu inaynu stebiska iyo aynu aragno qaabka loo sameeyey aynu tuso markaa waxaan samaynayaa haddana line baan dooranayaa kadib waxaan samaynayaa inaan halkaas saa idhaahdo aan halkaa ka jeexo kadib aan halkaa ku daayo kadib waxaan samaynayaa haddaba coloriska xitaa waynu kala rognay haddii aad arkayso kani xaggan buu ka socdaa kan aynu samaynayna xaggan buu ka socdaa marka waxaad samaynaysaa kanaad halkan keensanaysaa kadib waxaad samaynaysaa inaad strogiisa aad doorato kadib color pickerka aad doorato kanaad doorato aad stroke ku rogto kadib aad
4 uga dhigto stroke 4 markaan ka dhigay halkaas ugu daa kadib waxaad samaynaysaa haddaba inaad kan doorato kadib aad saa usoo koobiso aad qaybtan kala keento markasta line-ka waxaad raacinaysaa qaybta gareyga ayaad line-ka raacinaysaa haddana waan dooranayaa waan koobiyeynayaa qaybta gareyga markasta xagga qaybta gareyga ka xigto ayaad line-ka raacinaysaa markaad qaabka u raaciso waxaan samaynayaa inaan maana kuwan ka hoos mariya labada aan arrange idhaahdo kadib aan send back waa idhaahdo haddana aan idhaahdo maana send back gebigoodaba kadib aan idhaahdo bring forward qaabka keliya aad kaga sarraysiin karto weeyaan iminka oo kaa circle-ska inooga hooseeyaan cadcad gareygana way inooga sarreeyaan haddaba waxaan samaynayaa kanna inaan ka dhigto kalarkan aan ka dhigo mid walba kalarkiisa ayaad ka dhigaysaa qaybta gareyga ama qaybta kalarka kale qaybta kale ka soo horjeeda kalarkeeda ayaad mid walba ka dhigaysaa kan miyaanan kalarkii ka dhigin saa soo rog kana ka saar kadib stroke 4 buu yahay haa kadib kan ii door kalarka haddana kan ka dhig kadib stroke rog 4 ka dhig markaa stroke-giisa qaabkaasaad horta uga wada dhigaysaa kan haddana dooro stroke eyedropper-ka tag kan dooro kadib stroke ka dhig kalarka kadib 4 ka dhig stroke-ga markaad 4 saa uga dhigto waxaa ii hadhay haddaba circles yaryar inaan sameeyo aan halkaas saa idhaahdo aan xagga kalarka u rogo kadib aan halkan keeno aan halkaa dhigo kadib aan saa u yaro durkiyo in yar aan saa u yaro weyneeyo aan cidhifka ku beega markaad cidhifka saa ugu beegto soo koobiyey haddana halkan kala keenso haddana soo koobiyey haddana halkan kala keenso markaad wax samaynayso alignment-ka ay isugu day inaad wixii alignment-kooda aad saxdo kadib waxaan samaynayaa inaan kan doorto kalarkiisii aan ka dhigo haddana kan aan doorto aan kalarkiisii ka dhigo haddana kan kale aan doorto kani uu yahay kalarkiisii kanaan dooranayaa eyedropper-kan tegaya kalarkiisii aan ka dhigaya markaan sidaa kalaradii uga dhigto waxaa ii hadhay haddana inaan circle-ska yaryar dhex geeyo qoraalkan caddaan baanan ka wada dhigayaa markaa saasaan u dhex dhigayaa kadib waxaan samaynayaa right click inaan idhaahdo arrange bring forward baan leeyahay aad baan uga soo sarraysiinayaa kadib waxaan samaynayaa inaan caddaan ka dhigto caddaan markaan ka dhigto waxaan samaynayaa isaga iyo seerkasha inaan isku doorto kadib aan sameeyo inaan center idhaahdo haddana aan soo doorto aan halkan keensado haddana aan soo doorto aan halkan kala keensado seerkashan kale dhexdeeda keensado kadib haddana aan soo doorto soo koobiye anuu altaan xejinaya intaan wax koobiyeynayo haddii aad la socoto altaan xejinayaa aaroogan kan dhexda ayar ku geysanayaa halkaasaan ku daysanayaa kadib waxaan samaynayaa inaan kan 02 ka dhigo halkaa aan 02 ka dhigto control sd kadib aar baan saalayaa halkaasaan 02 ka dhiganaya kadib haddana halkan baan tegayaa hore kan kale kalarkan kale ee binkigaan tegayaa kadib halkaas waxaan ka dhiganayaa 03 kadib haddana check baan leeyahay haddana halkan baan tegayaa kan waxaan ka dhiganayaa 04 markaan sidaa uga dhigto iminka waxaad arkaysaa seerkashayda iyo trigaas inaanay dhexdooda joogin saasaan leeyahay horizontally align center baan leeyahay haddana vertically align center ayaan leeyahay haddii aad halkaa ku arkayso waa vertically align center qaabkaasu dhexda igu wada geenaya kanna waan dooranayaa se haddana waxaan dooranaya meena seerkasha hor dooro kadib tegaska dooro haddana vertically align center dheh haddana kan tag seerkasha hor dooro haddana tegaska dooro kadib horizontally align center dheh haddana vertically align center dheh vertically align center marka waxaad samaysaa waa wuxuu iga wada dhaqaajiyey seerkashii iyo tegaskii waxaan samaynayaa inaan kor yar qaado aan halkaa geeyo anoo aarowga ku dhaqaajinaya kadib halkaasaan ku daynayaa waxaan samaynayaa inaan kan iyo tegaska wada doorto aan vertically align center idhaahdo kadib haddana aan isaga iyo tegaska wada doorto markii dhaweyd seerkashoo keliya ayaan doortay kadib seerkashoo keliya ay dhaqaaqday ayaraan saa u dhaqaajiyo halkaan ku daayo haddana waxaan dooranayaa inaan kan oon align gareeyey kan iyo kan baan weli align garaynin kan inaan doorto haddana alignment aan tago aan horizontally align center idhaahdo haddana vertically align center aan idhaahdo iyo align garaysiin karna markaan qaybkaa u align gareeyo waxay hadhay keliya tegasyadii markaa tegasyada waxba qoraalkooda waqtigu si aan u muuqaalku noogu dheeraan waxba ku bixin mayno waan iska soo qaadanayaa infographic-gii baan imanayaa halkan baan dhiganaya markaa waxaan samaynayaa markaa inaan qoraalada halkoodii geeyo kanaan soo qaadayaa halkan aan keenayaa kadib haddana waxaan samaynayaa inaan kan soo qaado halkan aan keeno haddana kanaan soo qaado aan halkan keensado aan kan soo qaado aan halkan keeno marka iminka waxay naga dhiman waxa weeyaan oo keliya waxay naga dhiman
qaybta infoga ah ee informationka stepka sharaxaya ayaa naga dhiman informationkana idinku inaad samaystaan isku day insha Allah tacaala oo aad soo kordhisaan muuqaalka ma doonayeen inaynu taga sidii loo qori lahaa in waqti iskaga lumino laakiin stepska mar walba waxaan isku daynaa stepska iyo toolska la isticmaalayo aynu soo bandhigno halkaas cashirka noogu joogaya fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigeli wixii faaleed qabta commentiga hoose noogu reeb waxaan aad kaaga codsanayaa inaad cashirka sii share geliso la wadaagto asxaabtaada like naad noo saarto aad iyo aad baa u mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu